iyadoo maalintii shalayta ahayd ee ku beegnayd maalinta xuska qaran ee dhalinyarada jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa magaalada Caynaba lagu qabtay tartan ciyaareed lagu xusayo maalintaasi. tartankan oo soo qaban qaabiyeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saraar iyo dalada ururada dhalinyarada Somaliland Sooyo ayaa waxa la kala duwan ka soo jeediyay suduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saraar Xusayay xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse wuxuu ku kala hadlayay kooxaha kala duwan iyagoo tartankan ka qayb galay. waxay dhamaantood soo dhaweeyeen tartamada noocan oo kala ah ee lagu dhiirigelinayo dhalinyarada gobolka Saraar. farxsanahay maanta kulankan aanu yeelanay anaga iyo kooxda kale anoo ah kooxda Hormuud maxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya maanta dhalinyarada oo maanta ay ku beegnayd aad hambalyo ugu diraya isuduwaha dhalinyarada ciyaaraha Xuseen Axmed Caawad iyo Sooyo. farxo weyn bay galabtay tahay inaan ka qayb galo 20 February oo ah maalinta dhalinyarada jamhuuriyadda Somaliland oo halkan koob lagu xusayo maalintii dhalinyarada reer Somaliland aanu ku ciyaari doono maxay tahay waxaan kaloo mahad u celinayaa suduwaha wasaaradda dhalinta ciyaaraha gobolka Saraar iyo bahdiisa wasaaraddiisaba anigoo matalaya xubinna ka naadiga gaashaan ee ka dhisan gobolka Saraar xaruntiisa magaalada Caynaba. maanta ay tahay 20 February maalintii dhalinyarada Somaliland waxa farxad weyn noo ah inaan magaalada madaxda gobolka Saraar aan ku qabano tartan ciyaareed kubadda cagta oo u dhaxeeya kooxaha Hormuud iyo gaashaan oo lagu dabaaldegayo munaasabadda maalinta dhalinyarada Somaliland oo ka gees dalka maanta ka socota tan galabtan halka ku qabanayna waxa kamid tahay munaasabadahaas dalka ka socda dhamaan iyo gobolada dalka ka socda farxad bayna noo tahay runtii koobkan iyo tartankan iyo munaasabadahan dalka ka dhacayo dhan waxaan mahad weyn uga celinaynaa oo si wada jira u soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Somaliland oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo agaasimaha guud iyo dalada dhalinyarada heer qaran ee Sooyo oo hogaaminaya hogaanka sare dalada ugu horeeyo gudoomiyaha dalada dhalinyarada iyo agaasimaha guud iyo shaqaalihiisaba. runtii maalinta 20 February ama 20 February waa maalin u gaar ah dhalinyarada reer Somaliland ugana duwan maalmaha kale. anagana farxad bay noo tahay inaan maanta halkan kala qayb galo dhalinyarada gobolka Saraar. waxaan hambalyo u dirayaa guud ahaan dhalinyarada jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba. waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa dhalinyarada gobolka Saraar iyo bahda ciyaaraha oo aan leeyahay ilaahay sanadkan sanadkiisa ha inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. waxaan halkan ku gudoonsiinaa kooxda gaashaan koobkii aan ugu tala galay xuska maalinta dhalinyarada runtii kooxii halkan ku ciyaarayay oo ciyaar aad iyo aad u qurux badan soo bandhigay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ciyaarta soo bandhigeen waxa aakhirkii isla gaadheen rikoodhayaal waxaana guush ku raacday kooxaha gaashaan iyo Hormuud kooxda gaashaan aad ugu mahad celinaynaa dalada dhalinyarada Sooyo iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo halkan wakiil uga ahay anagu aad iyo aad buu mahadsan dhamaantoodba dadaalka ay geliyeen inay dhalinyarada ka farxiyaan oo maalintooda ay xusaan oo ka qayb qaataan aad iyo aad buu mahadsan waxaana koobka ku wareejeynaa kooxda gaashaan kabtankooda ay tahay 20 February oo halkan lagu ciyaaray xuskii dhalinyarada. runtii waxa weeyaan guud ahaan waxaan u hambalyeynaa dhalinyarada Somaliland guud ahaanteeda waxaan u dirnaa hambalyo gaar ahaan dhalinyarada gobolka Saraar yaan u sii hambalyeynaa galabta oo halkan ka jiro ciyaar saaxiibtinimo oo iska kaashadeen ururka Sooyo iyo maxaan rahay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga mustaqbalka. marka waxa weeyaan dhiirigelin weyn bay u tahay annaguna run ahaantii waxa weeyaan maamul ahaan aad iyo aad baan uga qayb qaadanaynaa waana ku gacan siinaynaa wax kasta oo dhiirigelin oo dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshada ay hormuud yihiin dhalinyaradu aad iyo aad baan uga hambalyeynaa una soo dhaweynaa. ugu dambeyntii tartankan waxaa isugu soo haray labada kooxood ee gaashaan iyo Hormuud waxaana halkaasi guusha ku raacday koobkiina ku hantiyay kooxda gaashaan waxaana si rasmi ah halkaasi ugu wareejiyay koobkaasi suduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saraar Xuseen Axmed Caawad jaamac boodacade warbaahinta qaranka Somaliland Caynaba.